dowladda Iiraan ayaa caawa ku qaaday weerar culus mar kale gudaha magaalada Abu Dhabi ee dalkaasi Imaaraadka Carabta. Arrintan ayaa timid kadib markii ciidamada ilaalada kacaanka ee dalkaasi Iiraan ay ku dhawaaqeen in ay si toos ah u bilaabi doonaan mowjado culus oo weerar ah oo ka dhan ah dalalka khaliijka ee saldhigyada weyn uu ku leeyahay dowladda Mareykanka. ilaa hadda lama hubo khasaaraha rasmiga ee ka dhashay weerarka culus ee goordhaweed lagu qaaday gudaha Abu Dhabi. weerarkan waxa uu ahaa mid Iiraan ay u adeegsatay diyaarado nooca aan duuliyaha lahayn kuwaas oo isku qarxiyay daarada dheer oo ku yaala gudaha magaalada Abu Dhabi. muuqaallo goordhaweed ay baahiyeen dadka ku sugan gudaha magaalada Abu Dhabi ayaa waxaa ka muuqanaya dabaqyadaasi olol aad u xoogan. waxay u muuqataa dagaaladii saaka waa berigii soo bilowday ee Mareykanka iyo sidoo kale Israa'iil ay ku qaadeen Iiraan inuu ku sii faafiyo bariga dhexe isla markaasna khasaaraha uu sii kordhayo. dhinaca kale Iiraan lafteeda waxaa la sheegayaa in khasaaraha ka soo gaaray weerarka kaga yimid Mareykanka iyo sidoo kale Israa'iil inuu yahay mid aad u sarreeya isla markaasna waxaa jirta in ilaa 100 qofood oo shacab ah ay waxyeello xun ay ka soo gaartay weeraradaasi culus si gaar ahaaneed iskuul ay weerareen ciidamada Mareykanka iyo sidoo kale Israa'iil gantaalo ay maanta ku tuureen halkaasi. labada dhinac Iiraan iyo sidoo kale Mareykanka iyo Israa'iil ayaa isdhaafsanayay fariimo kulkulul oo hanjabaad ah waxaana u muuqataa in meesha ay ka baxday heshiiskii lagu dhexdhexaadinayay Mareykanka iyo sidoo kale Iiraan ee la xiriiray barnaamijka nukliyeerka. golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa kulan degdeg ah waxa uu ka yeelanayaa xaaladda ka soo korortay gobolka bariga dhexe iyo weerarka Mareykanka iyo Israa'iil ay ku qaadeen Iiraan. waxaana kulankan uu noqonayaa mid si weyn looga hadlayo xaaladda guud ee ka soo cusboonaatay gobolka iyadoo walaac xoogan laga muujinayo xaaladda soo korortay. kulankan ayaa waxaa si wadajir u codsaday dowladaha Bahrain, Colombia, China, Ruushka iyo sidoo kale Faransiiska. waxaana uu noqonayaa kulankan mid si weyn loogu dardargelinayo loogana hadlayo xaaladda ka soo korortay gobolka bariga dhexe iyo sidoo kale dagaalka soo cusboonaaday. xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa qoraal uu soo saaray waxa uu ku sheegay in xaaladda ka taagan gobolka bariga dhexe ay noqonayso mid uga sii daraysa nabadda caalamka. waxaana uu ugu baaqay in arrintaasi ay tahay mid loo baahan yahay in si weyn looga fiirsado. waxaana uu si aad u cambaareeyay tallaabada military ee gobolka bariga dhexe ay ku qaadeen Mareykanka iyo sidoo kale Israa'iil. qoraalkiisa Antonio Guterres waxa uu ku sheegay in xaaladdan ay noqon karto mid sii cakirta xaaladda ka taagan gobolka bariga dhexe. waxaana uu ku baaqay in si degdeg ah dhinacyadu u joojiyaan xaaladda taagan iyagoo u turaya dhibaatooyinka ka alulsan gobolka bariga dhexe. Iiraan weerarkii lagu qaaday wuxuu ahaa mid jawaab celintiisa si degdeg ah Iiraan ay u bixisay waxaana saameyn uu ku yeeshay dawlado dhowr ah kuwaas oo ku yaala mandiqada gobolka bariga dhexe oo dhamaantood Mareykanku uu saldhigyo kala duwan ku leeyahay. dawladaha Sacuudiga, Imaaraadka, Qatar, Bahrain iyo sidoo kale dalka Kuwait ayaa dhamaantood Iiraan waxa ay ku sameysay duqeyn xoogan waxaana ay beegsatay saldhigyo dhowr ah oo Mareykanku halkaas uu ku leeyahay. waxaana la arkayay saldhig Mareykanku uu ku leeyahay dalka Bahrain oo gubanaya kadib markii gantaalo dhowr ay ku dhaceen. Iiraan ayaa sidoo kale weerar xoogan ku qaaday magaalada Haifa ee Israa'iil. si kasta noqotay kulanka golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaana noqon doona mid laga soo saari doono qoraallo iyo baaqyo ku aadan sidii loo joojin lahaa xaaladda ka soo cusboonaatay gobolka bariga dhexe. dalka Iiraan ayaa galay xaalad degdeg ah oo dhameystiran iyada oo la furay goobaha dadweynuhu ay kaga dhuntaan weerarada gantaalada ah ee dalkaasi ku hoobanaya tan iyo subaxnimadii hore ee Saaka. weerar xoogan ayaa Israa'iil waxa ay subaxnimadii hore ee Saaka ku qaaday magaalooyin badan oo kamid ah dalka Iiraan waxaana kamid ah magaalada caasimadda u ah Iiraan ee Tehran. weeraradaas oo ah gantaalo iyo sidoo kale qaraxyo ayaa inta badan waxa laga maqlayaa magaalooyin waaweyn oo ka tirsan dalkaasi. goobo muhiim ah ayaa lala beegsanayaa weeraradan oo ay kamid yihiin goobahaasi goobo si gaar ah ay u degan yihiin xubnaha ugu muhiimsan ee dalka Iiraan oo uu kamid yahay hogaamiyaha iyo madaxweynaha oo la soo sheegayo in la cararay isla mar ahaantaana laga saaray goobihii ay ku sugnaayeen iyada oo loo wareejiyay goobo kale si ay kaga badbaadaan weerarada tooska ah ee Israa'iil ay ka furinayso gudaha dalka Iiraan. weerarkan ayaa waxa iska kaashanaya isla mar ahaantaana ku lug leh Iiraan iyo sidoo kale Mareykanka iyadoo Mareykanku dhankiisa uu xaqiijiyay in weeraradaasi uu gacan ku leeyahay. Mareykanku waxa uu sheegay in ujeedku uu yahay in la xakameeyo hubka Iiraan maalmihii ugu dambeeyay ay soo bandhigaysay. haddaba xogaha ku saabsan weerarkan oo marba marka ka dambaysa is soo taraya ayaa waxa markaasi hadda xogtu ay sheegaysaa
in duqeymaha cirka ah ee ka socda gudaha Iiraan looga gol leeyahay in lagu burburiyo nidaamka amniga ee Iiraan waxaana la filayaa duqeymaha soo socda inay noqdaan kuwa baaxad weyn sidaasina waxaa shaacisay warbaahinta Al Jazeera oo ka soo xigatay sargaal sare oo Mareykan ah duqeymaha Mareykanka iyo Israa'iil ay sida wadajirka ah uga wadaan gudaha Iiraan ayaa ilaa iyo hadda waxa ay ka dhaceen goobaha kala ah Tehran, Qom iyo sidoo kale Isfahan halka oo la beegsaday xarumo military iyo dhismayaal kale sida ay warisay warbaahinta Iiraan safaaradda Mareykanka ayaana waxa ay markaasi qaar kamid ah safaaradaha Mareykanka ee wadamada caalamka ayaa si degdeg ah waxa ay kala baxayaan goobaha markaasi bariga dhexe ee safaaradahooda ay ku yaalaan Israa'iil waxa ay dhinaca gala gashay xaalad dagaal oo degdeg ah maadaama la filan karo in jawaab degdeg ah ay bixiso dawladda Iiraan oo saaka weerar culus ay ku qaaday Israa'iil waxa la furay goobaha gabaadka ee weerarada laga galo ee Israa'iil halka la xiray isku socodka dadweynaha sida ay hadda ku dhawaaqday wasaaradda difaaca ee Israa'iil muuqaallo ayaa waxay muujinayaan magaalada Tehran ee caasimadda Iiraan oo lagu arkayo duqeymaha ay sida wadajirka ah u fuliyaan Mareykanka iyo Israa'iil saraakiil sarsare oo Mareykan ah ayaana u sheegay warbaahinta Al Jazeera Mareykanka iyo Israa'iil ayaa si wadajir ah u fulinaya weerarka ka socda gudaha Iiraan hogaamiyaha sare ee Iiraan Ali Khamenei ayaa la ka saaray magaalada Tehran oo ay ka socdaan duqeymo uu Mareykanku fulinayo waxaana la geeyay goobo ammaan ah oo si gaar ah loogu ilaaliyo sida ay hadda ku warantay warbaahinta wararka ee Reuters wakaalada wararka ee Iiraan ee Tasnim ayaa dhankeeda waxay ku waramaysaa in duqeymaha ka socda gudaha Tehran lagu beegsaday xarumo dawladeed oo ay kamid yihiin wasaaradaha sirdoonka wasaaradda difaaca xarunta ay u degan yahay hogaamiyaha sare ee Iiraan Ali Khamenei iyo xarunta hay'adda tamarta nuclearka ee Iiraan sida laga sheegay ama sida la sheegay weeraradu wali way socdaan waxaana lagu wadaa caasimadda Iiraan ee Tehran mowjado weeraro isdaba joog ah in ay ka dhacaan saacadaha soo socdo maadaama tani ay ahayd mid la filan karay isla mar ahaantaana maalmihii la soo dhaafay Mareykanka iyo Israa'iil ay qorsheynayeen weerarada noocan ah dhankiisa Mareykanku waxa uu maalmihii ugu dambeeyay diyaaradihiisa dagaalka soo xaadiriyay qaybo kamid ah bariga dhexe si uu dagaalkan ugu wajaho Iiraan waxa ay sheegtay inay qaadi doonto tallaab degdeg ah oo aysan horay u qaadin taasi oo ka dhigan in ay weerari doonto magaalooyinka Israa'iil iyo qaybo kamid ah Mareykanku meelo oo luku leeyahay taasi oo xaaladda si kordhinayso isla mar ahaantaana ka dhigaysa mid faraha ka sii baxayso saacadda ka dambayso wararku waa ay soo tarayaan xaaladda bariga dhexe ayaana waxay noqonaysaa mid adduunku uu indhaha ku hayo xaaladda gobolka bariga dhexe ayaa noqonaysa mid sii xumaanaysa saacadda ka dambaysa marka loo eego weerarkii Mareykanka iyo Israa'iil ay ku qaadeen Iiraan jawaab degdeg ah oo ay bixisay waxay noqdeen kuwo si weyn u xanuujiyay dawladaha dhowr ah kuwaas oo ku yaala mandiqada gobolka bariga dhexe dawladaha Sacuudi Carabiya Imaaraadka Kuwait Bahrain iyo sidoo kale Qatar dhamaantood waxay noqdeen kuwo si weyn loo bartilmaameedsaday saldhigyo Mareykanku oo goobahaasi uu ku leeyahay marka loo eego dalka Bahrain waxa si weyn kaamirooyinka iyo sidoo kale muuqaalo laga soo qabtay ay muujinayaan in uu gubanayo saldhig weyn oo Mareykanku halkaas uu ku leeyahay Iiraan waxa ay sheegtay in ay awoodo in ay isdifaacdo sidoo kalena ay qaadi doonto tallaabooyin ballaaran oo ka xanuun badan kuwa hadda taagan sidoo kale dalalka Ruushka iyo sidoo kale China ayaa dhankooda waxa ay muujinayaan walaac xooggan oo arrintan ay ka qabaan iyaga oo sheegay in dawladda Mareykanka iyo sidoo kale Israa'iil tallaabooyinka ay qaadeen ay noqon doonaan kuwa cawaaqibkooda aan la mahadin wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov oo qoraal soo saaray waxa uu sheegay Israa'iil inay sameysay khiyaano kadib markii ay u sheegtay in aysan jirin wax dagaal oo ay geli doonaan dhanka kale dawladda UK waxa ay sheegtay inaysan marnaba shuqul ku lahayn dagaalka Israa'iil iyo sidoo kale Mareykanku ay ku qaadeen Iiraan waxa jirta in Iiraan sidoo kale ay qaaday weeraro dhowr ah kuwaasi oo ka dhacay qaybo kamid ah gudaha Israa'iil magaalooyin dhowr ah oo ay ku jirto magaalada Haifa ayaa si weyn u gubanaysa iyadoo xarunta ugu weyn Israa'iil ee kiimikooyinka lagu kaydiyay ay yihiin kuwa hadda si weyn u gubanaya xaaladuhu waxay muujinayaan wax aad u cakiran marka loo eego gobolka bariga dhexe iyo sidoo kale waxyaabaha haatan ka taagan saacadda ka dambaysa gobolka bariga dhexe ayaa noqonaya mid sii bedbedelaya waxaana xaaladuhu ay yihiin kuwo aad u liita gobolka bariga dhexe saameyntiisa marka loo eego dalalka saldhigyada Mareykanku uu ku leeyahay ayaa hadda dhamaantood waxay wajahayaan cabsi ku aadan gantaalada iyo sidoo kale waxyaabaha ay ku ridayso dawladda Iiraan Imaaraadka Carabta Sacuudiga Bahrain iyo sidoo kale Qatar iyo Jordan dhamaantood bartilmaameedyo ayay u noqdeen gantaalada Iiraan ay ridayso iyadoo sidoo kale ay jiraan in ururada sida gaarka u taageersan Iiraan ay dhankooda wacad ku mareen inay qaadi doonaan tallaabooyin
ay ugu heelinayaan jamhuuriyadda islaamiga ee Iiraan oo weerar lagu qaaday. laakiin si kasta ahaatee xaaladda gobolka ka taagan ayaa ah mid saacadba saacadda ka dambaysa sii bedelaysa. madaxweynaha waddankaasi Mareykanka Donald Trump waxa uu sheegay in weerarka ay qaadeen uu yahay mid dowladda Iiraan lagu dhadhansiinayo waxyaabaha uu ku tilmaamay in ay diiday gorgortan iyo sidoo kale waan ay ka gasho hubkeeda nukliyeerka. dagaaladii saaka ay ku waabaraysatay Iiraan isla markaasna kaga yimid Mareykanka oo kaashanaya Israa'iil ayaa yeelanaya xilligan waji cusub isagoona ku sii faafaya gobolka bariga dhexe si gaar ah dalalka qaliijka uu muuqanaya kuwa u nugul dagaalada culus ee u dhaxeeya Iiraan iyo sidoo kale Mareykanka oo garab ka helaya Israa'iil. saacadii la soo dhaafay waxaa sii kordhayay tirada weerarada ee Israa'iil iyo sidoo kale Mareykanka ay ku qaadayeen guud ahaanba Iiraan magaalooyin ka tirsan si gaar ahaaneed magaalada caasimadda ee Tehran. hase yeeshee dhinaceeda waxa ay kaga jawaabtay Iiraan weerar culus ay ku ekeysay saldhigyada military ee Mareykanka uu ku leeyahay wadamada qaliijka sida Bahrain, Imaaraadka Carabta, Sacuudiga iyo sidoo kale Qatar, kuwaas oo muuqanaya inay u nugul yihiin dagaaladii saaka lagu qaaday Iiraan saameyn xoogan oo ku yeeshay sida muuqato. bayaan ka soo baxay taliska ciidamada guud ee dalkaasi Iiraan ayaa waxa ay ku sheegeen in saldhigyadii Mareykanka ee ay ku lahaayeen dalalka qaliijka ee saaka ay weerartay dowladda Iiraan inay xaq u leedahay weerarkaas isla markaasna dhul bad ilaa iyo cir ay weerar ku ekeyn doonto saldhigyadaasi military sida ay xustay. afyeen u hadlay ciidamada Iiraan waxa uu sheegay in Tehran iyadoo ay xaq u leedahay tallaabo walbo ay isku difaacayso isla markaasna ay kaga argudanayso Mareykanka, taas oo muuqanayso in dhinac walba oo jawaab cad ay bixinayso xukuumadda Tehran. natiijada weeraradii lagu qaaday Iiraan ayaa u muuqanaya mid xilligan ay guulo isdaba jooga gaarayso dowladda Iiraan sida muuqata maadaama saldhigyadii ugu muhiimsaneyd Mareykanka la duqeeyay ay ku lahayd dalalka qaliijka. haddaba maxay tahay sababta ka dambeysa in ay xukuumadda Iiraan mar walba weerar ku qaado dalalka qaliijka hadduu weerar kaga yimaado wadajira Mareykanka iyo sidoo kale Israa'iil? falanqayaasha gobolka ayaa qaba in arintan ay salku ku hayso in Iiraan ay u fududahay weerar ay ku qaadaan saldhigyada qaliijka ay ku leedahay Mareykanka, waxaana xusud mudan in Mareykanka dhaqaale aad u fara badan uu kaga yaalo gobolka bariga dhexe si gaar ahaaneed dalalka qaliijka ee Iiraan ay weerarka ku ekeysay. ilaa hadda lama ogo khasaaraha rasmiga ee ka dhashay weerarada culus ee weli lagu soo waramayo in si isdaba joog ah uu kaga dhacayo gudaha Iiraan iyo sidoo kale meelo ka baxsan oo dhankeeda Iiraan ay qaadayso tallaabooyin isku difaacayso.